السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله Soomaaliyeed meel kasta joogtaan fiidiyogan wuxuu ku saabsan yahay arrin cajiib ah oo ka dhacday iskoolaadka wadankan Ingiriiska arrintan waxay dhacday isbuucii la soo dhaafay dabcan waxaad isweydiinaysaa waa maxay arrintan cajiibka sidii aan horey in kugu sheegay fiidiyoyadeedii horeeto carruurta wadankan Ingiriiska waxaa la soo siiyaa qalab ay isku baaraan si loo ogaado in cudurka coronavirus qabaan iyo in kale qalabkan guryahooda ay u qaataan cudurkana saas ayay iskaga soo baaraan haddii negative ay helaan iskoolka ayay imaanayaan haddii positive ay helaanna iskoolka ayay soo wargelinayaan inay positive heleen markaas iskoolka canuga wuxuu siinayaa 2 isbuuc uu karantiil garaayo uuna is soo baarayo si loo xaqiijiyo inuu cudurkan qabo iyo in kale haddaba carruurta qaar waxay sameeyeen experiment waxay soo qaateen liimo oranjo waxayna ku dareen daawadii taas oo ka dhigtay testigii mid positive ah dabadeedna waxay ku wargeliyeen iskoolaadkana waxay u sheegeen carruurta inay galaan karantiil muddo 10 maalmood iyaga kaliya karantiil maysa geline dhammaan carruurta galaaskooda la dhiganaysay karantiil ayay galeen haddaba waxaa macquul ah in canugaaga uu arko carruur kale oo arrinkan sameysay dabadeedna uu ku daysado haddii canugaaga lagu qabto isagoo arrinkan sameynaya waxaa macquul ah inuu la kulmo cawaaqibyo adag sida in iskoolka laga buriyo oo kale sababtoo ah wuxuu saameyn ku yeelanayaa iskoolka oo dhan wuxuu saameyn ku yeelanayaa waxbarashadiisa shakhsi ahaaneed maadaama uu iskoolka ka maqnaanayo 10 maalmood taasoo 2 isbuuc ah sidoo kale carruurta galaaska la dhigata iyagana karantiil ayay gelayaan iyaguna waxbarashadooda saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa maadaama iyaguna maqnaanayaan 10 maalmood sidoo kale waxay saameyn ku yeelanaysaa macallimiinta maadaama macallimiintu ay u diyaarinayaan casharro online ah dhammaan carruurta ku jirta karantiilka taas oo saameyn weyn ku sii yeelanaysa iskoolka sidoo kale waxay ku tusinaysaa mas'uuliyad darro haysata canugaaga maadaama qalabkan uu yahay qalab lacag badan ku baxday dad badanina aysan haysanin marka waalid ahaan maxaad samayn kartaa waalid ahaan waxaad samayn kartaa la fariisa canugaaga oo kala hadal in qalabkan lacag badani ay ku baxday isagana aan loo soo siinin inuu ku dheedheelo 2 canugaaga la joog marka uu iska baarayo cudurka coronavirus taasi waxay ku siinaysaa kalsooni ah in canugaaga uusan qabin cudurka sidoo kale canugaaga kuma dhihi karo covidkii positive ayuu noqday oo waxaan joogayaa guriga 10 maalmood taasoo saameyn ku yeelanaysa waxbarashadiisa haddaba ka feejignow arrinkan oo la soco canugaaga la wadaag walaalaha kale waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu